بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكوسو دوادا ورركا هبينمو ee xogta ciyaaraha qodobada caawa aan idinku soo gudbin doonana waxa kamida kooxda Borussia Dortmund oo laba xiddig ku dhawaaqday isla maanta kadib markii uu ka baxay ciyaaryahankoodii weerarka ee Christian Pulisic. David De Gea golaha kooxda Manchester United oo go'aan adag hor dhigay kooxdiisa Man U. Real Madrid oo ciyaartooydeeda qaarkood ay xaqiijiyeen in Hazard iyo Paul Pogba ay ku biirayaan kooxda Real. Chelsea oo heshiis cusub ka saxiixatay mid kamid ah ciyaartooygeeda ku sugan garoonka Stamford Bridge. maxaa ka jira in Pep Guardiola uu shaqada ka bedelayo macalinka xilli ciyaareedka baxaya ee haatan maamula Juventus ee Allegri. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal idinku hayaa caawa wararka xogta ciyaaraha ee soo dhawaada. aan ku bilaabay daawadayaal kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa kadib saacado markii uu ka tagay ciyaaryahankii weerarka uga dheelayay ee Christian Pulisic waxa ay maanta ku dhawaaqday laba xiddig oo ay la soo wareegtay. kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa waxa ay la soo saxiixatay Torgan Hazard walaalka Eden Hazard oo isagu markaa ka soo wareegay kooxda Borussia Mönchengladbach oo ka dhisan dalka Jarmalka iyadoo lafteedu Borussia Dortmund ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay saxiixa Torgan Hazard iyadoo markaa uu noqonayo saxiixii ugu horeeyay ee kooxdu ay la wareegtay xilli ciyaareedkan. Torgan Hazard ayaa heshiis 5 sanadood ah qalinka ugu dugay kooxdiisa cusub ee Borussia Dortmund. Hazard ayaa 5 xilli ciyaareed ku qaatay kooxda Mönchengladbach waxaana markaasi uu dhaliyay 45 gool 176 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan. 26 sano jirkani sidoo kale qaybta ka ah xulka qaranka ee dalka Belgiumka ayaa dhameystay kaalinta saddexaad ama kooxdiisu ay ku dhameystay kaalinta saddexaad ee koobka adduunka ee 2018 lagu qabtay wadanka Ruushka. sidoo kale Borussia Dortmund ayaa dhameystirtay saxiixa xiddigii kooxda Bayer Leverkusen ee Julian Brandt oo ay ku soo iibsatay 22 milyan oo gini. xiddiga Jarmalka ee 23 sano jirka ayaa qalinka ugu dugay heshiis 5 sanadood ah kooxda waxaana uu noqonayaa saxiixii labaad ay maanta samaysay kooxda Borussia kadib Torgan Hazard oo ay kala soo wareegeen Borussia Mönchengladbach. Christian Pulisic ayaa Chelsea ku biiray bishii Janaayo balse amaah ugu ciyaarayay Borussia Dortmund inkastoo shalay ay si rasmi ah kooxda ay u soo bandhigtay Chelsea. kooxda Jarmalka ayaana durbadiiba u dhaqaaqday in ay markaasi buuxiso booskii uu baneeyay Christian Pulisic. markii uu heshiiska saxiixay Dortmund ciyaaryahan Bernat ayaa yiri waxaan ahay qof ka go'aan gaaray waxaana qalbiga markaa ugu jira iyo waxa markaasi aan dareemayo inay muhiim yihiin. marka laga hadlayo Borussia Dortmund waxaan ka haystaa dareen aad u fiican waxaan doonayaa inaan waqti wanaagsan halkan ku qaato ayuu yiri ciyaaryahankan daayirta. golaha kooxda Manchester United ee David De Gea ayaa go'aan adag hor dhigay kooxdiisa. sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail ee dalka England ka soo baxa kooxda Paris Saint-Germain ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay David De Gea ku iibsato xagaagan adduun dhan 60 milyan oo gini. De Gea ayaa diiday dalabkii ugu dambeeyay ee Manchester United si uu u kordhiyo qandaraaskiisa kaasoo dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda. wuxuuna ku adkaystay in uu ka tagayo garoonka Old Trafford dhamaadka qandaraaskiisa. haddaba kooxda Manchester United ayaa waxay ka fiirsanaysaa inay iibiso golayaheeda David De Gea xagaaga soo aadan halkii ay ku sugi lahayd ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka cusub isla markaana uu kaga tagi lahaa beec horta yeelkeeda. kooxda reer Faransa ee Paris Saint-Germain ayaa isku diyaarinaysa in ay bixiso mushaharka toddobaadlaha ah oo u baahan yahay golaha kooxda Manchester United iyo xulka qaranka reer Spain ee David De Gea kaasoo gaaray ilaa iyo 350 kun oo pound. qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda Real Madrid ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in ay kooxda ku soo biiraan xagaagan labada ciyaaryahan ee Real Madrid la xiriirinayo ee Eden Hazard iyo Paul Pogba. Pogba ayaa magaciisa la xiriirinaya in uu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid xagaagan gaar ahaan kadib markii uu ciyaaryahanka sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu u ciyaaro Los Blancos iyo inuu markaasi la shaqeeyo tababaraha kooxdaasi haatan maamula ee dalka Faransiiska ay ka soo wada jeedaan ee Zinedine Zidane. tababaraha kooxda Real Madrid Zidane ayaa sidoo kale qiray in uu markaasi la dhacsan yahay xiddiga reer Faransa ee Paul Pogba taasoo ka dhigan in qof walba uu filayo in xiddiga qadka dhexe ee dalka Faransiisku uu ku biiri karo kooxda Real Madrid. haddaba Rafael Varane ciyaaryahanka difaaca uga dheela kooxda Real Madrid ayaa sheegay inay suurtagal tahay Pogba iyo Hazard in ay ku soo biiraan kooxda Real Madrid. waxaan la sheekaystay Pogba laakiin ma sheegi karo haatan wixii aan u sheegay. ciyaaryahan kasta oo weyn waa hubaal inuu boos ka helayo Real Madrid. Real
mar walba waxaad ka helaysaa tartan ku aadan dhammaan xarumaha kala duwan ee kooxda. waan jeclaan lahaa in markaasi ciyaartooy weyn oo tayo leh ay ku soo biiraan kooxda. Real waxay la saxiixan kartaa Pogba, waxaana jira warar badan oo ku saabsan waxaan arki doonaa waxa dhacaya bisha Agoosto ee soo socota, ayuu yiri Rafael Varane. waxaan garanayaa Eden Hazard tan iyo intii aan joogay kooxda Lens, waan hubaa inuu yahay ciyaaryahan meel sare ka gaaray kubadda cagta. sidaan horay u sheegay, ciyaaryahan kasta ee weyn wuxuu boos ka heli karaa kooxdan Real Madrid. Hazard wuxuu ku jiray xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa markii aan ku wajahnay semifinalka koobka adduunka. waxaan ogeyn inaan haysano qorshe qaas ah ee aan ku joojin karno isaga, laakiin waxaan hubaa inuu yahay ciyaaryahan khibrad weyn, ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa ciyaaryahan Rafael Varane. waryahanka qaranka Faransiiska iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa waxa uu ka warceliyay hadal uu markaasi maalmo ka hor sheegay tababarihii hore ee Real Madrid soo maray ee Jose Mourinho. tababarihii kooxda Manchester United dhawaan laga celiyay ee Jose Mourinho ayaa ammaan u soo jeediyay waryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ee haatan 31 sano jirka, wuxuuna xaqiijiyay inuu si weyn uga caawiyay inuu ka mid noqdo ciyaartooyda ugu fiican adduunka. Mourinho ayaa waraysi uu markaasi bixiyay oo uu siiyay RMC Sport wuxuu ku sheegay, waxaan qabaa in Karim Benzema uu jeclaysay inuu ila shaqeeyo, waxaanan qabaa inaan ka caawiyay inuu fahmo waxyaabo badan, taasoo ka dhigtay inuu ka mid noqdo ciyaartooyda ugu fiican dunida haatan, ayuu yiri Jose Mourinho. waryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa ka falceliyay hadalka ka soo yaray macalinkiisii hore ee Jose Mourinho, waxaana uu sheegay ama uu ku soo qoray boggiisa Instagram-ka erayadaasi 100% waa kuwa run ah. aad buu ula dhacay dabcan Karim Benzema hadalka ka soo yaray macalinkiisii hore ee Jose Mourinho, oo isagu sheegay in uu qayb weyn ka qaatay in Benzema uu ka mid yahay haatan weeraryahanada ugu fiican adduunka. labadan shakhsi ayaa ku soo wada shaqeeyay garoonka Santiago Bernabeu xilli ciyaareedkii uu kooxda joogay macalinka kooxda Manchester United dhawaan laga eriyay ee Jose Mourinho. laakiin haatan waxay u muuqataa in markaasi macalinku uu la dhacsan yahay qaab ciyaareedka cajiibka ah ee uu soo bandhigay xiddigan ku guuleysay xilli ciyaareedkani xiddigii ugu fiicnaa kooxda Real Madrid. kooxda Chelsea ayaa saacado gudahood waxa ay ku dhawaaqday saxiixeedii labaad iyada oo heshiis cusub ka saxiixatay goolhayaheeda da'da ah ee Willy Caballero, kaasoo muddo 1 sano oo dheeraad kooxda la sii joogi doona. si rasmi ah ayay Chelsea ugu dhawaaqday heshiiska cusub ee ciyaaryahan Willy Caballero, goolhayahani da'da ah ee xulka qaranka dalka Argentina, waxaana markaa uu saxiixay uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu kula sii joogi doono kooxda ilaa 2020. Chelsea oo markaa ka cabsi qabta in labada xilli ciyaareed ee soo socota suuqa ay ka ganaxnaato ayaa shalay waxay heshiis cusub ka saxiixatay weeraryahankooda Olivier Giroud, iyadoo sidoo kale isla shalay soo bandhigtay weeraryahanka cusub ay soo iibsatay ee Christian Pulisic. haatanna waxa ay heshiis cusub ka saxiixatay Willy Caballero maalmo ka hor ayay ahayd markii David Luiz oo heshiis cusub oo 2 sano ah kooxda uu ku sii joogayo oo qalinka ku duugay, taasoo muujinaysa in markaa Chelsea ay ciyaartooydeeda haatan kooxda jooga ay danaynayso inay sii ceshato maadaama laga ganaxay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda muddo 2 xilli ciyaareeda. daawadayaasha qiimaha lahow, warkii habeenimo ee xogta ciyaaraha inta ay noo joogo. daawadii haddii aad ku cusubtahay boggan, fadlan subscribe dheh, like saar, commentina ka bixi xogta aan ku soo gudbinay. adigoo aad u mahadsan.